kusoo dhawaada dhalinyaro taxaneeni cybersecurity-ga muuqaalkeena maanta waxaan ku baran doonaa waxa uu yahay phishing-ku sidoo loo sameeyo inagoo isticmaali doona kalilinagas. Okay, marar badan mawduuca phishing-ka wax weyn ka soo tilmaamnay balse markaan aynu soo koobno si cashirku isku keen xidhmo. Okay, phishing-ku waa mid ka mid ah hababka ugu caansan ee ku bilaabmaan weerarada cyberku waana hab inta ugu badan ay hackersku ku guuleystaan fulintiisa. Phishing-ku keliyata waa in lagu soo diro email ama message loo keysiyay mid run ah sida mid ka mid ah shirkadaha waaweyn ee Facebook ama YouTube oo fariin ku soo diray ay ku leeyihiin account-kaaga xaqiiqi oo kale ama password-kaaga iyo username-kaaga geli. adiguna waxaad malaynaysaa inay tahay fariin run ah oo ka timi shirkadaasi balse maahan waa fariin been abuur ah taasi oo aad markaad linkigaas ku dhufato ama aad xogta geyso meesha looga baahnaa ay sidaasi hackersku la wareegayaan account-kaagii. ama waxa uu noqon karaa in markaad linkaas taabato uu linkiga soo dejiyo malwares kale oo waaweyn sida remote access trojan oo kale ama spyware oo kale sidaasina ay systemkaaga kusoo galaan. Okay, haddaba qaabka uu phishing-ku ku yimaado way badan yihiin. waxaan ka soo qaadaynaa dhowr qaab oo ay ka mid yihiin spear phishing oo ah kan aynu haddeer ka soo hadalnay ee isku ekaysiinaya shirkad caadi ah oo sax ah sidaasna kugu soo gelaya. waxaa jira isna wailing oo ah isna la isku ekaysiyo qof madaxa oo kale. tusaale ahaan waxay hackersku isku ekaysin karaan madaxa shirkad weyn kadibna mid ka mid ah shaqaalaha shirkadaasi ay u dirayaan email ay ku codsanayaan lacag ama wax kale. shaqaalihina wuxuu moodayaa inay cidan tahay madaxdii shirkadda oo sidaasi ayuu lacagtii ama accesska ay rabeen uu ku siinayaa. waxaa isaguna ka mid ah farming oo ah inay hackersku qofka isticmaalaha u dhowaan website-kooda marka isku dayo inuu isticmaalo website sax ah oo legitimate ah. waxaan habkan lagu samayn karaa DNS poisoning aynu hore uga soo hadalnaysana. Okay, intaas waa qaar ka mid ah qaabka ku yimaado phishing-ku. haddaba aynu isku dayno inaan samayno phishing kooban. ugu horreyn markaa soo kicisa mashiinka kalilinagas inuu soo dejino toolka lagu magacaabo social engineering toolkit oo ah toolkan isticmaali doono ee ku jiraan waxyaabaha ay rabnay in adeegsanay. markuu soo dego soo kici oo ku qor sudo set toolkit. Okay, haddaba halkan si naga muuqata waxaa laynooga digayaa inaynu toolkan adeegsano dhinaca xun. arrinkaasi oo ah mid aan dhaqan ahaan iyo aqoon ahaan wanaagsanayn ha u adeegsan inaad dadka ku dhibaatayso. Okay, halkan waxaa naga muuqda options kala duwan sida social engineering attack, penetration testing iyo kuwa kale. waxaynu muuqaalkeena u baahanay in isticmaalno social engineering attack. Okay, hal taabo. haddaba halkan isna waxaa nooga muuqda options kale oo badan. spear phishing attack oo ah noocyan hadda ka soo waramaynay. website attack factories isna waxa uu ataagaraynaya websiteska kadibna wuxuu dhex gelinaya waxyaabo malwares ah kan lagu magacaabo infectious media generator. waxyaaba lagu sameeyo waxaa ka mid ah flash ama drive malware ku jiro oo kale kaasi oo meesha la geliyaba malwarekaasi ku faafinaya. waxaa ku xiga create payload oo isna lagu sameeyo payloadskii aynu hore usoo marnay. mass mailer attack oo lagu diro emailska phishing-ka ahna kan ay muuqaalkeena maanta ku adeegsan doono. adrio based attack oo isla la mid ah infectiouskii hore laakiin waxyaabaha qaar ay kala duwan yihiin. wireless access point oo loo adeegsado in lagu sameeyo wifi access point fake ah. QR code generator oo lagu sameeyo QR code marka la iskaagareeyo qofka ku soo dejinaya malware ama geynayo website khariban. iyo ugu dambeyn PowerShell attack oo lagu samayn karo commands si remote ah. intaas oo nooc attack ah ayaa lagu fulin karaa toolkan marka adiga laga rabo inaad in badan kasii barato. haddaba aan doorano toolka lagu magacaabo mass mailer. Okay, soo gal gudihiisa kadibna dooro single mail oo one ah kadibna waxaan soo dooranaynaa one time template. subject-ku waa qoraalka ugu horeeya ee usoo muuqanaya qofka marka uu email ku soo dhaco. marka qoraalkan waa inuu noqdaa mid qofkii soo jiidan kara. ereyada badan la adeegsano waxaa ka mid ah urgent oo kale ama important oo kale iyo waxyaabahaasi qofka tusinaya in emailkan yahay mid muhiim ah ayna tahay inuu furo. marka emailka waxaan ku qoraynaa urgent action required to your account. waa tusaale formatkii rabnay inaynu qorno waa plain text maadaama aynan ku darayn wax linkis ah. laakiin haddii linkiga ku darayso waa inaad u qortaa formatka HTML oo tagiska iyo qaabka loo qoro HTML ayaad u qoraysaa. Okay, kadibna halka waxaa ka bilaabmaya qoraalkaagii. hana noqdo qoraalkaagu mid soo jiidanaya qofka kuna dhiirigelinaya inuu taabto linkigaasi.
iminka tusaale ahaan waxaan iska qoraynaa kadibna marka dhamayso control+C taabo soo gujiso uguna gudubto stepka xiga okay kadibna geli emailka cidda rabtay oo dirto linkigan maadaama uu tusaale yahay waxaan isticmaalinaa temporary email waxaan u dirayaa teleefankayga haddii aad machine iskale isticmaashana waa okay halkan waxaan isticmaalaynaa serverka waa local haddii aan ku furnay wax kasoo dejisan kartaa postfix adigoo isticmaalaya command-kan okay emailka isna diraya waa mid temporary ah in isticmaalaynaa kadibna magaca cidda diraysa fariintan magacaasna uu ekaada mid sax ah sida support team oo kale iska dhaaf meeshan username-ka open-relayga iyo passwordkiisaba open-relaygu waxuu la xidhiidhaa SMTP-gana inooga dhig local host mar labaad haddii aan ku furnay waxaad soo dejisan kartaa postfix portna marka 25 ka dhig high priority yes leh halkan haddaad rabto waxaad soo geli kartaa attachment sida payload oo kale ama fileska malware-ka ah marka phishing la sameynayo meelaha malware laga soo gelin karo waxaa ka mid ah link yahayna usoo geliso adigoo isticmaalaya HTML format kana soo gelinaya xaggaas hore ee bodiga ama inaad attachment ahaan ugu dejiso adigoo marka hore soo sameynaya payload kadibna halkan isdhahayo kadibna qorayo locationka payloadkaas u yaalo inuu kuma darayno waxa payload ah iyo link doona kaliya qaabka loo sameeyo ayaan ka fargaraynaa okay haddaba way inoo dhan tahay inaan teleefanka ka eegno sida halkan nooga muuqata fariintii wayna soo gaadhay phishingka marka la sameynayo hal meel unbaa focuska la saaraa waana qurxinta qoraalka inuu ahaado mid qofku qancin kara inuu linkan ku dhufto oo kusoo dhaco shabakadda muuqaalkana maanta intaas ku eegay waxaan filayaa in isla fahnay qaabka loo sameyn karo phishing ka taxadir habka in lagu dhaco maadaama uu yahay mid aad common ah sidoo kalena si baro waxyaabo badan oo ku saabsan qaababkaas ayaan hor u soo xusnay la wadaag muuqaalkan asxaabtaada mahadsanid